لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون من تكسيلها Soomaaliya lagu magacaabo Xasan Cabdi ayaa maalinkii Isniinta lagu tooriyay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kadib markii xaaskiisa u soo adeegsatay kooxo dilayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteyda janaalka naga daawanaysiin waa Canshuur Official. Hadday ay ugu cusub tahay farxad ayay ii tahay. Soo dhawaa adduunka meel kastoo ka joogto. Xoogaa dhuunta ayaa iga xiranaya maanta ashma ahan karoon ma igu soo socda ilaahay iga mutiyo. Asxaabteyda waa idin salaamaa. Haddii ay ugu cusub tahay waa tan ku sheegay farxad ayay ii tahay dhiirigelin ayay ii tahay. soo dhawow isoo booqo maanta Canshuur maxay wadaa haddii aragto waxbay wadaa mahano maanta waxaa ka hadlaynaa arrin ka dhacay Nairobi oo saa aragteen gabar ayaa ninkeeda dishay waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun arrin lagu farxo ma ahan ayaamaha waxaa soo batay dilka lees dilaya ama nin ha noqoto ama naag ha noqoto naagtan kolley waxay ku dishay aniga kolley warka ma hayo laakiin waxaan arkay in social media la isla dhexyaacayo gabadha sawirkeeda waa halkaa aragteen gabadha sawirkeeda ninkeeda waxay ku dishay Nairobi Islii ay ka dhacday arrintan gabar oo iidu ayaa ii sheegtay marka arrinta aad ay xasaasi u tahay waxaa lagu leeyahay ayaamahan dhan ay arrinteedu socotay marka xaalad adag waaye ilaahay waxa kori ilaahay oo naxariisto miskiinkaas dhintay marka gabadha ayaamahan dhan ay isku kacsanayeen aliire muddo 6 bilood gaaraysa ayay arrintooda socotay gabadhii 2 caruur ayay u dhashay ninkii kulley waxbay la isku qabsado ma naag buu guursado ma aqaan say tahay kulley waxbay u badan tahay maseer waxaa laga yaabaa qoftan bini'aadamka Nairobi iska taqaanin gabdhaha iyo wiilasha joogan markay yimaadeen muddo joogaan wax yar joogaan waxaa la isku qabsadaa wax yar bay isku guursanayaan iisi marka hore markii dambena gabadhii ama gabar kale ama lala qabay ama say tahayba waa ogtiin Nairobi waxa ka dhaca Nairobi iisi ayaa la isku guursadaa iisi markii la isku guursado ninkan waxaa laga yaabaa inuu xaas iyo caruur kala lahay waxaa laga yaabaa inuu hadda ka daba guursaday marka waxa waaye qofta bini'aadamkana markay maseerto waxay dhaafayso iyo waxay markaas sameynayso maba kala taqaanba marka maaqasay naqatay gabadhii adiga ninkii waxaa lagu yiri 5 nin ay soo kireysatay 5 nin ay soo kireysatay lacag siisay kulley 5 nina la qabtay waxa warbixinta baxshay oo dhiibay 5taas nin waay marka 5 nin markay maxkamadda la geeyay oo la xiray waxay sheegeen gabadhan in lacag siisay waxa ku iyada soo nimankan balansatay ee tira ninkaas iga cesha meel ay ku balansheenaa lagu leeyahay oo ku baahan meeshaas uu imaad markuu u yimidna adi muran ayaa dhex maray wixii lagu murmay qofna waxa ku xog ogaal oo ii sheegta ma arkin laakiin muranka markuu dhex maray kadib waxaa la yiri muddo ay ula soo bixeen muddadii caloosh ka galsheen miskiinka saas ayuu ku nafwaay hadda maxay sameysay waa kaasa wax fiican may sameysay iyadoo waxa ku maslaxadeeda qaadato oo waxa loo qaato maxkamadeeda war ka sugto hadayna rabin ninkan qasab kuuma qabay madaxiga si hada tira kulley qasab kuuma qabay laakiin amarka markuu dhici rabo 10 sano ayuu ka weeyahay xaalad adag ayaa meeshaas ka jirto 2 caruur iyadii waxaa laga yaabaa xataa in la xiro saas inaan lagu daynaa laga yaabaa iyadana waxa ku ama Soomaali loo dhoofiyo dhibka inta waa ka sii badana marka gabdhaha Soomaaliyeed fikir wiilasha Soomaaliyeed sidoo kale iyo inkana sidiina waxa sameynaysiin wax markaas aan mustaqbal ka dhigaysiin oo u fiirsateen ha noqoto qoftaan nafay leedahay waa guursatay beena markii hore u sheegtay kaalisaan waay saana kuugu sameeyaa kana ku sameeyaa adiga dhan dahab iluulaha ka dhiga hadaa tiraad oo biri beenti laga daba tago wallahi iidana waxay been raad male marka aad iyo aad waxaan u badan tahay arrintan maanta iyo shalay YouTube saasa loo dhex wareejinay
qof la arko waxaa kor waa wadaa sawirkooda iyo sawirkiisa idaacad miya maqaa qof meel oo kolley aa soo qaadatay meesha soo qaadatay kolley waa intaad dhegaysateen waaye oo hordhigaas ah xaaladda waxaa kor ma fiicno wallaahi maalin ramadaan waaye waxaa kor maskiinkaas horta ilaahay ha u naxariisto qof wuxuu ahaa islaam ah waxaa layidhi wiil tagsiilahu ay tagsi iskaga shaqaysanaaye ilmihiisa qutulyoonkooda kolley asaga dhacsanaaye qoftan waxaa laga yaabaa inuu shaydaan horta adiga waxaad samey rabto 1000 sanay kaawan yihiin wax maanta kugu kooban oo adiga le kaa bilowda ma aha marka wallahi xaaladda waxaa kor waa isku xun tahay tagsiilahaasoo iska ahay oo iska xamaalinayay habeenii maalin waxaa layidhi tagsigaasoo waday ilmihiisana qutulyoonkiisa waa dhacsanay qoftaanite ilaahay horta wuxuu kugu rari rabo 1000 saray kaawan yihiin waxa waaye wax markaasite oo ka adiga intaada dhalin dhigneed waaye ilaahay horta dhiig islaameed naguma raro wallaahi aad iyo aad aan naxay qof dishi marka la yiraahdo aniga waxaa kor harraca kala dhaha ayaama hore ingiriiska saasoo kale waxaa ka dhacday nin naagtiisa saas si xun u dila qofta ciilaa ka badahaayo qoftan dhibuu kasoo maray waxaa laga yaabaa hadda gabadhan oo kale inay iyada sabarkeeda oo marka hore badnaay ay waxaa kore si iisiya oo ku guursaday oo waxyaabo badan oo ballanqaada uu u sameeyey malaha waxaa kore hadda waxaa laysku qabsanaa ama biilkaa laysku qabsanaa ama naago ka daba aroos adigoo si iisiya lagugu soo guursado oo adigaba waxaa kore wax badan aynu kaaga bixin oo ballanqaadihii badan oo lagu sameeyey aana waxaa kore qofta aada ka helin waxaa laga yaabaa inaa hadhow ballanqaadkii lagu sameeyey waaysid haddana waxaa kuyidhi ninkan uu naag kale oo guursanayo marka waxay isleedahay shaydaankii wuxuu tusiyaa wuxuu u qurxiyaa ninka inaaba nafta dhanka qaado oo naagtaas guursanaba wallaahi arrin aad u xanuun badan waaye ayaamahan waxaa kuyidhi soomaalida kuma badnaa jira talyaaniga arki jira marka hore waxaa kuyidhi ninkii naaguu la saaxiibaa naagta markuu la saaxiibo wuxuu sameynaa mukrab yeelada mukrab markay tiraahdo ninkan diina kuma dhaqmo anaka diinta islaamka waxaa la rabaa inaa diinteeda waa diin islaami oo waxaa kuri qofta muslim oo shahaadata in qofta kale ina dili kare qoftan diin kuma dhaqanto wuxuu sameynaa waa qabsanaa naagtii ama dada u adeegsanaa ama isagaaba aaba wejiga inuu xirto habeen madow oo waxaa kuri jafka siinaa ama qaarkood waxaa kuri inuu ku casuumaan maqaayo iyo waxaas asooy saaxiib la tahay ee weli ka tegin ee waxay sameynaysaa niman kale iyo waxbay isku dhex wadwadaysaa markaasoo wuxuu sameynaa maqaayo walxu ku casuumaa tartiib lo waxaa kuri intuu soo wado mugdigaas meelahaas oo soo wado oo baawurka ama katuura ama waxaa kuri bustoolada qaadaha madaxu dhag aga siinaa asaga in la xiro diyaar u naqaa qoftaa inay nolol kala qaadanin oo barbiyaabo marka anaga dad islaam aan nahay saas nagama suurto gasho ilaahay waxaa kuri dadka islaamka xaqa allaha ogeysiiyo waa maalin ramadaan ilaahay xaqa ogeysiiyo muslin oo inakan waxaa kuri usoo duceeya gabadhaas waxaa kuri dhiig ilaahay waaba ku qaadaba hadda labadii caruuraheed hooyo la-aan iyo aabba la-aan ay naqanaya marka iid waa la xiraa ama waa la dilaa hadday soomaali joog leed hadda waxaa laga yaabaa in geed la geylaa laakiin haddoo kale waxawaaye gaaladan waxma dilaan oo iska xiraya kenya waa gaalo sida badan dad islaamo diin isaaba kuma dhaqmaan haddii la qabto ama waa la dilaa ama waa la xiraa ilmihii masaakiin ahay labadaas cunug waxaa kuri maanta dabkooda u nuuraay oo waxaa kuri badankooda u nuuraay hooyo aabba la-aanay naqdeen xaalad aad u xunaan ku jirnaa wallaahi bilaa saban aakhirkii soomaalidii waxaa kuri dhinacna dagaala aga socdo dhinacna cuduro aga socdo dhinacna iibkii isku dilayaan marka adigaa raacdaa waay marmarka qaarkood waxaa isleedaha soomaalida magaceeda maxaa ku bada wallaahi markee xaaladda ay ku jirto annakoo waddan qaniya qabno oo waddankeena maanta uu qaniya waddankeena waddan gaalada ay u fafakaysa ou yahay haddana maanta xaqi annaka arkoyno annaka waxaa rabnay xaquuqdii ay waxaa kuri bila-aadanimada ay ku dhaqmaan oo kale aana ku dhaqmoy marka xaaladayna aaday u adag tahay ilaahay naga soo gaaro waa maalin ramadaana aan ducaysano aan waxaa kuri rabbi tuugno ilaahay ha naga soo gaaro wiilashaynana haqa allaha ogeysiiyo gabdhahaynana haqa allaha ogeysiiyo
حقدر أيام كسعنا ما في أن جدك أن كسعنا إلهي وأنا عرونا أنت قفت وحاكور ديك إسلام هذا كشيء إذا هذا ما أنت وحاكور هدي للدي حتى أدوية والولي كل مولا هيسا فرحتكم هليسو حالة هذا وحاكور حالة أدو حنين نقنيسا هدي حتى أرض سكبح فريا تالي رال حتى وحي ما أنت دريميسا إني حق إسلام يتكشي دريميسا والله بالله حالة آدي وحنتاي إله النبي سوقارا أنا والله وكم مرقودة مركا أركو مرق أي قبط sababtoo dad badan ay kasoo hadla maanta waxaa kasoo hadlaya waxaa gol adi fikradaada ka dhiiba ayay ila tahay marka ilaahay inuu xaqna soo ogeysiiyo ilaahay aan tuugno waa maalin ramadaan ilaahay inuu ramadaankeenana aqbalo dhig islaameedna ilaahayna gelin oo ilaahay raali naga noqdo marka xaaladda aan ku socon waa xaalad aad u adag oo waxaa kuri muslimka aynu waxaa kuri ku soconin marka ilaahay naga soo gaaro ilaahay aan barino insha allah رمضان كفدل جيسا إنه إلهي وحكورة نجا قبته وش دب بذا أو وإحنا ندبع إلهي نجا قبته مرك أصحابي كليب كأنت أيام سوق بجبيها صوته أيام حواي إلهي نجا سوق رجارة دبك إلهي وحكورة إلهي نجمو ورش دب إلهي نجمو ورش قبلين يقول شيء نحق لها ويسي مركا صاحب يالو إنك كان فاتح هذا نص أقرية نص الدعية aan soo duceyno dhammaantay inuu ilaahay dhibka naga qabto saxaayo idin salaama maanta anoo iska caajisanaa xataa iska soo fadhiistay oona u fiirsanin insha allah kliibkan intaan ayaa kusoo afjiraa assalaamu calaykum waraxmat